dowladda ayaa si adag uga jawaabtay eedeymo uu dhawaan jeediyey wasiirkii hore ee amniga gudaha Fred Matiang'i kaas oo ku andacooday in dowladda madaxweyne William Ruto ay ajaanib siinayso kaararka aqoonsiga qaranka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari si loogu adeegsado doorashada guud 2027 hadalka Matiang'i ayaa dhaliyay dood siyaasadeed oo xoogan iyadoo uu ku eedeeyay maamulka hadda jira inuu qatar gelinayo hufnaanta nidaamka doorashooyinka hayeeshee qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalka ayaa si cad u beeniyay eedeymahaas iyagoo ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raatoona lahayn hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Aaron Cheriot ayaa sheegay in dowladda aysan wax lug ah ku lahayn bixinta aqoonsi sharci darro ah wuxuuna xusay in arinta kaararka aqoonsiga ee muranka dhalisay ay jirtay xitaa ka hor inta aanu madaxweyne William Ruto xilka qaban Cheriot ayaa ku dooday in dib u habeynta lagu sameeyay habraacyada bixinta aqoonsiyada ay tahay mid loogu fududeynayo muwaadiniinta Kenyaanka ee muddada dheer la kulmayay caqabado ku saabsan helitaanka dukumeentiyada aqoonsiga gaar ahaan bulshada ku nool gobolada waqooyi ee dalka wuxuuna ku baaqay in arintan laga fogeeyo siyaasadda doorashada 2027 siyaasiyiin kale ayaa ayiday hadalkaasi hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka watu wamekosa agenda kabisa sasa wameanza kuzunguka na maneno ya fitina kuna wakenya wengi sana ambao walikuwa wananyimwa vitambulisho kwa sababu za kiujinga na tunajua ile ukora ambayo mlikuwa mnafanya hata hapa Kericho because of voter suppression we have nearly 300,000 citizens who are over the age of 18 but they don't have IDs sababu wakienda kwa chief wanaulizwa maswali mingi baba yako ni nani mama yako ni nani na watoto wengine pengine hawajui